السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا معلمو channel أصحابتا عصب سو دوادا كوي هورانا رنتي آدي أمهات سنتين سدا سواركتين رنتي حنوا إنان دول استاغو دور قضب وكسابسان سدحنين إلى أفرنين هاد سدحنا هاي لك متكل أفراد جرو مقعيس aan laqsanahay oo runtii raga dhalinyarada YouTube-ka caanka ka mid ah oo la waayay meel ay ka baxeen iyo waxa ku dhacay mid kamid oo ognahay waan idin sheegi doonaa aad ogtiin dhamaantiina laakiin wax keenayo ayaan runtii fahmi lahay ilaa hadda markaasi u fiirisay qof walba oo magaca oo bulshada magac ku leh magac kaliya wax ma taraayo dad badan jira magac bulshada ku leh oo aan wax u tarin laakiin qofka magaciisa caanimadiisa oo dadka ku wanaajiyo dadka ku caawiyo wax ugu taro inta badan uu dhumaa sida oo dhaqsaha badan ma la arko hadda tusaale soo qaato waxaa kamid ah runtii Jamal Jecelo oo jooga magaalada Nairobi wuxuu kamid ahaa dadkii Nairobi haddaan dhaho oo YouTube markii la dhaho dadkii ciidan barto kamid ahaa dad badan oo YouTubers ah oo caan ah magac bulshada ku leh ayuu runtii soo gacan qabtay kow laba saddex la dhihi karin ayuu soo saaray soo caawiyay saan hadda aan ka warqaban weli Nairobi jooga shakhsiyan ani asawada xiriirnay in badan laakiin inta badan marka weydiyo dhaho Jamal waa sida xaaladaada YouTube ku soo laabo ku baahan yahay qosolkaaga shactiradaada caawitaanka ay fara badan laga baahan yahay uu sheegay inuu weli wado caawitaankii aan shakhsiyan aan ka arkay laakiin wax ma jira waxay tahay why maxaa ku dhacay why camera oo soo hormuuqlina yahay sababta maxay tahay waa su'aal taagan oo in laga jawaabo loo baahan yahay mid kale runtii aan dul istaagna waxay tahay liicaato aan ognahay dhammaanteen ciday runtii oo ciday ka qasan tahay liicaato qof ku yahay malahan oo wax aan ka dirsan dhammaanteen shakhsiyan waxaan arkay video oo runtii marro uu soo dhigay oo runtii 2 maalin 3 maalin ka hor uu soo dhigay oo wada daawateen laakiin waxa ay soo jeetay kaliya waxay tahay hadaladiisa furfurnaantiisii hore hadalada loo bartay qosolkii wuxuu ahaa qof markuu hadlayo qof kale ag fadhiyo oo qosli jiray liicaat inta badan laakiin wuxuu ahaa sida qof khashuucsan camal niyad ahaan aan joogin dabeecadiis runtii waad ognahay qof wuxuu ahaa aad u dabeecad wanaagsan dadka caawiyo saynay sheegay si Jamal Jecelo kaleeto uu liicaat wixii sayda si ahayd dad badan uu caawiyo ayaan waad ognahay dhammaanteen oo had social media ku jiro wuxuu ahaa qof runtii markuu arko qof dhibaataysan garab istaago inta badan wuxuu ahaa shakhsi oo hadduu dadka codkooda meel dheer gaari karin inuu garab qabto ayuu liicaata lagu bartay welina wuu yahay wuuna soo laaban doonaa saan rajaynayo laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay oo aan isweydiinta badan saan rabaa inay sheegay dad badan oo caana jira magaca bulshada ku leh laakiin aan ugu barnin in tacaawiyaan dadka ayaka weli tagayeen dadka caawiyo oo garab istaago maxaa ku dhacay waa su'aal oo runtii aan isleeyahay in laga jawaabo u baahan tahay qof kale runtii aan rabo inaan asana dul istaago waxa kamid ah Cabdimalik Muuse Coldan wuxuu ahaa shakhsi dad badan garab istaagay caawiyay runtii hatta aan aragnay dadku caawin jiray inay TV soo istaageen dhahay ninkaas la noo soo daayo oo wuxuu jiray barnaamij dhihi jiray kaalme kuwan caawinaan fara badan ayuu sameeyay dad badan oo runtii oo ajaanib hata ku jira ayuu xabsiyada ka soo daayay dad badan ayuu runtii garab qabtay Cabdimalik sala socono qof maanta international u baahan ma laakiin hadda waxaan hayaa dhowr video oo Cabdimalik ku saabsan oo dadku caawin jiray hadlay oo dhahayaan han noo sii daayo laakiin waxaan rabaa inaan soo qaato hal mid kamid ah midkana kamid ah si fiican u daawado magacay waa Cabdalla Aadan Dhageyso waxaan ka codsaday madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa inay soo deystaan Cabdimalik
socdo taasaan ka codsanaya inay iska xafidaan micnaha dadkan dad badan oo caan ah la joogo oo hadday noqon lahayd siyaasiyiin hadday noqon lahayd dad siyaasiyiin oo runtii ayaga ka matalo laakiin waxay ka door bideen in cabdimaan loo soo sii daayo marka waxaan dhihi karaa micnaha topiga inaan ka baxa mar rabo laakiin markaad si u fiirisid waxyaabaha isweydiinaya oo idinka ina weydiinaya waxay tahay dadkan dad waxay ahaayeen magaca bulsho ku leh waa ognahay cid ay qarsad ma lahan waxay ahaayeen dadka caawiyo oo u gargaaro caawiyo dadka garabka u baahan garab istaago dadka codkooda meel dheer aan gaari karin isku daya inay garab istaagaan sida Liya Caarta lagu bartay camal Cabdimaal lagu bartay Jamal Jaceyl naftiisa wuxuu ahaa qof runtii inta badan waxaa lagu bartay Jamal Jaceyl inuu yahay qofkii caawi dhaho aan waxba ka hagarna caawiyo nafteeda waan ku arkay taayada bacda ayada Liya Caarta dad badan ku ammaan oo arkay waxyaabo kale ku arkay waxaa kamid ah inuu runtii saynay sheegay uu dadka garabka u baahan ay inta badan garabkooda hayeen dadkii ayaga ahaa iyo hal wiil kala jira asagana oo joogi jiray magaalada Xamar weli inuu joogo u maleynaa laakiin dhawaanahan waa waay naftiisa oo rabadlaanta markii la gaaray ayuu dadka caawiya kaas inta badan laakiin rabadlaanta kadib sanadihii hore uu sii wada jiray laakiin sanadkan waa la waayay waxa keenay ma financial problemia ma arrimo kale miya ma la garan karo asal laakiin kuwa ka dugnaa oo wax yar ka dambeeyay caawinaantiisa وانا يوتيوب معها لكن انت بدن wuxuu u shaqeyn jiray TV oo maana astaan TV u shaqeyn jiray laakiin caawitaankii faraha badnaa ee uu sameyn jiray dadku uu ka farxin jiray wala waay macnaha muhiimaddu waxay tahay haddii ka camal sabab loo sameyn karaa laakiin raggan saddexdana kaleeto waa dad oo runtii inta badan calaam su'aal saaran tahay waxyaabaha keenayo in qofka ama shakhsiyaadka bulshada muhiimku ah ee u dhumaan sida oo dhaqsiya badan ee loo waayo waa su'aal runtii oo aan isweydiiyay shakhsiyan idinkana aan weydiinay jawaabtan iska rabo waxa keenay ma garan karo hadda Jamal Jaceyl tusaale ahaan markaan la hadlay wuxuu u dhahay niyow markaan camera soo fadhiisto oo inta kale wuxuu dhahaa hadla waa sheekeen oo faxsanaya laakiin markaan camera soo fadhiisto waa cajisa wax keenay ma garan karo Liya Caarta naftiisa waa aragnay asagoo leeyahay waxaas ku dhaca waxaas Allahu aclam anaka muhimno man ogni man ku dambaabay karno laakiin asaga afkiisa ayaa sida ka dhahay muqdishadii hala tagana dee waa qasab in la isku saaray waa qasab bagi la iskaga dhaco waa qasab marka walaal waxaan leeyahay aad baa idin jeclahay intii jecel waan jeclahay intii necebna ana idin jeclahay noolaan ay wanaagsan macnaha horta Xamar uu tay karaa waa magaaladii uu ku dhashay waa hoygiisii waa Soomaaliya waa wadankiisii cid ka xigta mara inuu tago laakiin ma ka filaynin inuu dhahayo waa taga quraan ay soo saaraan marka Allahu aclam xaaladiisa ku sugan tahay oo u duceynayna Allah caafiyo halkeen oo baahanahay inuu sidiisii si ka wanaagsan u soo laabto waa shakhsi ay bulshadu u baahan tahay waa shakhsi oo isleeyahay waxtarkiisa iyo runtii la joogitaankiisa ay bulshada Soomaaliyeed ay wax weyn u ahayd Liya Caarta inta la mid ah asikaligiisa ma runtii shakhsiyaad fara badan jira inta badan waxaan aragnay dadka muhiimku ah inta badan ma daahan macnaha qof allaha okay hadda bulshada hiblow soo baxay siyaasadu xitaa hiblow soo baxay caan waayo dadku caawiya waxa laga yaabaa inuusan daahin sidoo dhaqsan qofka xalay in la waayo ama inuu dilo macnaha inaha siyaasiga ma rabo laakiin waxyaabo badan ahaya oo cadeena qof bulshada wax u taraya oo sanad ugu dambeysay la dhahay qofkan bulshada u soo baxay magaca bulshada u yeeshay bulshada caawiya masaakiinta caawiya dadka masaakiinta oo guryahooda runtii ka maqnaa soo celiya madaha sidoo dhaqsan qof kale la kacay marka waxyaabaha keenay ma garan karin runtii inta badan laakiin hadda dadka aan soo qaatay waxaan isleeyahay there must be something wax la jiro wixii jirna kolba waa uu soo bixi doonaa hadduu ilaahay cimri sukan siiyo ayakana waxaan rajeynayaa in runtii ayakoo sida haddii ay ahaayeen si ka adag ay soo laaban doonaan insha allah asxaabta barnaamijka inta kusoo gabagabeynaa hadday tahay markooda janaka aad soo boqotid fadlan subscribe noo saar